nagala hadlo Jamaal. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بمهد له marka hore marka labaad mudane cali khaliif galeyd ayaan halkan ka salaamaya iyo marta sharafta halkan isugu timid haddii aan ka hadlo 10 daqiiqaad siiso horta dee economic challengeska ama iyo opportunitieska jira ama fursadaha dhaqaale iyo caqabadaha dhaqaale dalka ka jira haddii la israaca oo sharaxa runtii waqti badan bay u baahantay marka xun baan ka taabanaya ee runtii dee wax aan anigu kaligay 10 daqiiqo ku soo koobi karaya maaha horta oo ducaynaa madaxweynaha dee la dhaarin doono Britole insha Allah caqabadaha hor yaala oo qaar aad u ballaaran weeyaan dal wuxuu qabsanayaa haddii Ilaahay yiraahdo shaqo la'aantu ay tahay 80% ilaa 90 dadkeeda ilaa 5,000 oo dhalinyaro sanad walba ay jaamacadaha ka qalin jabiyaan shaqo la'aan ay jirto economic engine ama dhaqaale machine dhaqaale oo jira oo shaqo u abuuraya aanu jirin sicir barar oo cirka marayo cashuurintu ay aad u yar tahay Somaliland shilinkii uu maartay devalue ama uu 30-40% uu aad u dumay wax bajada oo dawladda lagu taageeraa aanu jirin oo caalamka ay ka heshaa aanu jirin gobolladii bariga oo 2% oo barigii madaxweynihii cigaal Allah ha naxariistee uu bilaabay in lagu horumariyo 2% oo ilaa 7 milyan oo dollar sanadkii noqonaysa aan lagu horumarin oo lacagtaas meel ay tagtay aan la garanayn ilaa sanadihiina soo dhaafay oo dhan musuqmaasuqu runtii uu xad beelay waxa la yiraahdo audit ama wax dee la isku sameeyo oo ama la baaro baadhistaan la isku sameeyana aanu dalka sinaba uga jirin marka waxa weeyaan dhaqaaluhuna waxa weeyaan waa laf dhabarta dal marka la dhisayo haddii madaxweynuhu dal aanu dhaqaalihiisu aanu dhisnayn ama caqabadaha dhaqaale aanu dhisin dalkaasi dal ma noqdo marka horta xaaladda uu madaxweynuhu dee loo dhaarinayo waa xaalad noocaas oo kale taa oo inay la fahanno weeyaan madaxweynayaashii hore dee waxay qabteen waxbay qabteen walba wuxuu ku dareeyay madaxweyne Siilaayo qudhiis uu dadaalay wax badan buu sameeyay xagga developmentka laftirkeeda laakiin madaxweynuhu waa shakhsi society buu ka tirsayay wasiiruu leeyahay marka runtii horta madaxweyne Siilaayo waa u ducaynayaa oo waa nin qiimo leh weeyaan qarankan u soo shaqeeyay madaxweynayaashii ka horeeyayna sidaas oo kale ay sameeyeen marka haddaan ka hadlo fursado badan ba hadaba yaala oo madaxweynuhu uu sameyn karay dal marka la maamulayo xagga dhaqaalaha laba policy ba caalamka lagu maamula mid la yiraahdo monetary policy ama siyaasadda xagga lacagta iyo fiscal policy ama waxa la yiraahdo siyaasadda xagga cashuurinta oo inta badan oo maxay ahaydey maxamedna ka hadlay maanta waxa weeyaan marka madaxweynuhu labada fursadood ayuu shaqeyn karayaan oo kaga shaqeysiin karay central bank ama bankiga dhexe waxa weeyaan injiinka staara dhaqaalaha dalkeenana bankigii dhexe wuxuu noqday meel yaro treasury oo lacagta la dhigto oo aan dhaqaalihii dalka maamulin oo lacagtii Somaliland sideedu uga shaqeysiin dollarkii ama wadanku wax reserve ama aan leenahay oo ma jiro oo dadka caalamku dadku reserve ay leeyihiin marka abaara ku dhacaan ama marka dhibaatooyin dhaqaale ay ku dhacaan ayuu dee maamulaan financial institutions ama banankuna ama marka aad eegtid dal marka la maamulayo 1/3 ama boqolkiiba 30% ama boqolkiiba 30 ayay financial institutions ku maamulaan haddii marka financial institutions ama bangiyadii iyo dee xagga dhaqaalaha dadkii maamulayay aanu aad u shaqeynayn waxay ka dhigan tahay boqolkiiba 30 dhaqaalaheennii oo hurda tusaale ahaan haddaan ku siiyo waxaa laga yaabaa imika waxaasoo lacag aynu raadinaynaa dawladduna iyadoo shaqo abuurka inta badan samaysa maaha waa private sector-ka weeyaan laakiin dawladda environment-kii bay u samaysaa private sector-ku uu ku noqon lahaa mid wax soo saar haddii maanta aynu lacag fara badan haysano
lacagteeni laakiin ay barkimooyinka ugu hoos jirto oo lacagteeni bangiyada iska taalo oo aan laga shaqaysin waxa weeyaan taas waxay ka dhigan tahay in dhaqaalaheeni 3% uu iska hurto maanta waxa lagu qiyaasaa depositka ama Soomaaliland dhex yaala magaalada Hargeysa kaliya in lacag 300 milyan oo dollar ay bangiyada iyo dadka kale ay dhex taalo lacagta barkimooyinka iyo meelaha kale dhex taalaana iyaduna waa si xad dhaaf taasi looga shaqaysiin lahaa ayaa hadaba u baahan in la qabto madaxweynuhu hadaba ma aha hebel ku bedel ma aha wasiirro kooban dawlad tira yar oo tayar yar waxa ma way ka weyntay weeyaan waxaan u baahanahay serious reform xagga dhaqaalaha serious reform xagga cadaaladda ama maxkamadaha sharciyada sababta dadkii investorska ama dadka maal gelinaya hadday arkaan dalku inaanu xagga maxkamadaha uu ka liito oo sharcigu aanu shaqayn cid maal gelinaysa mashto qof walba wuxuu ka baqanayaa in lacagtiisu u soo noqon weydo lagu qabsado marka waxaan u baahanahay in madaxweynuhu uu eego serious reform ama dib u habeyn aad iyo aad u ballaaran oo xagga sharciga uu ku sameeyo dib u habeyn aad iyo aad u ballaaran oo xagga dhaqaalaha uu ku sameeyo markuu labadaas sameeyo oo aan ahayn hebel ku bedel iyo wasiirro tirayar iyo dhowr hebel oo meesha la keeno aan ahayn oo ka weyn oo xagga policy ka weyn markuu intaa keeno ayaa dalku uu eegi karaya marka in dadkana dib heshiisiin loo sameeyo marka dadka dib heshiisiin loo sameeyo ee dadkii tabanayay waa kii Cali Khaliif ka hadlay arrimuhu ka hadlay Cali Khaliif oo aan ku raacsanahay runtii arrimahaas oo kale marka dadkii la walaaleeyo ee sharcigeena wax laga bedelo ee dhaqaalihii laga shaqeeyo ee cadaaladda laga shaqeeyo markaas dalka ictiraaf la dooni karay ictiraafka inuu nimanka kaba hadalno horta runtii aniga waxay la tahay ictiraafku uu fiican yahay oo inaan deed wax doonano way wanaagsan tahay laakiin waxaan leeyahay hawsha inoo taala marka hore laftirkeeda ayaa hawl aad iyo aad u ballaaran oo u baahan in dadka laga shaqeeyo haddaba madaxweynaha la dooranaya maxuu u baahan yahay ama anigu waxaan arkaa fikradihii oo dhan waynu wada haynaa dalka wax allaale iyo wax inaga qaldan oo dhan waynu ognahay maxaa inaga maqan haddaba waxa inaga maqan waxa la yiraahdo execution ama fulin wixii in la fuliyo saayar baan idin soo qaadanayaa berban buug akhriyay la yiraahdo Who Said Elephants Can Dance buugga waxa qoray in la yiraahdo Julius Garner oo ahaan jiray chief executive-ka IBM company-gii la oran jiray wuxuu ka sheekeynayaa siduu turn around ugu sameeyay ama company-gaasi uu u bedelay waxa weeye fikrad laga qaadan karayo weeyaan qofku company markay tahay iyo dal markay tahay oo waxyaalo isu dhow la bedeli karayo wuxuu sameeyay ninkaasi wuxuu yidhi aniga oo banker ah oo aan computerist oo engineerna aan ahayn ayaa waxa la dhiibay company-gii ugu weynaa xagga computerist caalamka markii la dhiibay company-gaasi ayaa company-gaasi stock price-koodu sanadkaa waxay luus gareeyeen $6 bilyan waa 1993 markii ay luus gareeyeen lagu yiri ama ay khasaareen lagu yiri company-ga hadaba dib u soo habeen ku sameey ayaa waxaan eegay warshayaasha iyo planiska u yaala company-ga iyo dadkiiba sanad aan la sheekaysanayay waxaan ogaaday in dadkan oo dhan ay fahansan yihiin waxa ka qaldan dadkan oo dhan qorshayaashii ay hayaan laakiin waxa qura ee dhiman ay tahay in la fuliyo anigu hadaba ulba soo qaatayo ushu mar halka la istaagayo fuliyun baan idhaahdaa buuri halkaas ma ka garaacaa 8 sanadood kadibna company-gii $6 bilyan luus gareeyay ama khasaaray wuxuu faa'iiday maxay ahayd $13 bilyan ninkaasi de waxa weeyaan waad arki kartaa halku ka soo qaaday company-gaas khasaaraha oo ahaa iyo halka uu gaarsiiyay anigu waxaan u arkaa madaxweynaha cusub sidoo kale uu wada ogay dadkeena oo la wada ogyahay waxa inaga qaldan kulligeen waynu ognahay cid aan ogeyn habarta tamaandhada iibinaysa dad la sheegaystay waxay ku sheegaysaa wax Soomaaliland ka qaldan ay ku sheegaysaa runtii maalin walba inaynu soo qodbadayno inagu oo aynu ka hadalno waxa dal inaga qaldan maaha waxa inaga maqan waxa weeye inaynu xufulino madaxweynahana lagu caawiyo in wax la fuliyo fulistaas waxa weeye imika waxaynu nahay imika dadka hadda eegtid dawlad kooban ayuu doonayaa haddii berito dawladda kooban uu sameeyo ama waxa uu sameeyo qaar badan baa ka hor imanaya reer hebel de meesha kuma jiraan meesha odhanaya ama carqalad ku bilaabaya hadda waxaynu u baahanahay inaynu sameeyno
xagga dhaqaalaha runtii aad iyo aad baynu uga liidanaa waxaan u baahannahay inaynu dee habeen aad u ballaaran oo aan ku samayno reform sida cashuuraha aanu rabno dowladdu xagga financial institutions ama xagga baananka aad looga shaqeeyo sicir bararka la eego dadka noloshoodii ay dhibaatada hayso sababta intii yara shaqada haysateena wixii ay heleen u geyn maayo waxba dadka intoodu badnaydna waaba shaqo laayiin dee dal ku dhismaya in qurbaha laynooga soo diro daadeer ma noqonayso sababtaa dadka qurbaha jooga way isbedelayaan oo caruurtii generations cusub baa bilaabmaya oo ku dhashay qurbaha oon xidhiir badan lahayn somaliland lacagna aan soo dirayn sideeba haddaba looga baxayaa sidaan dhaqaala burburkana imika aanu ku jirno ama sida aynu nahay dadkeennana ay wax soo saar u samayn lahayn inaanu ka faa'iidayno waxyaalahan maxay ahayd kalluunka beeraha waxyaalahan in dadka laga shaqaysiiyo ayaa u baahan madaxweynena carqalada haysata ee ugu waaweynay ee taska hor yaalla waxa weeyaan sidii somaliland shilinka dib loogu soo habeen lahaa sicir bararka dib loogu samayn lahaa iminka dadka badankooda ma oga miyaa ka warhaysaan in sanad walba lacag ku dhow 45 milyan oo dollar oo lacag cusub la soo daabacanayo haddana iminka dib u eegtay iminka last 5 years lacag ka badan 200 milyan oo dollar oo lacag la soo daabacday ayaa suuqa lagu soo daayay taas waxay keentay inuu Somaliland shilinkii uu dhulka u galo adduunkana la iskama daabacdo lacag waa qalad weeyaan waa serious crime weeyaan marka waxaas oo kale la sameeyo waxaana lacagta la daabacdo waxay ka dhigan tahay iyadoo lacagtii la xaday oo la qaatay ay ka dhigan tahay sababta dhaqaalaha dalka ayuu bay burburinaysaa qofkii lacagta Somaliland shilin hay'addu ay dhulka gelinaysaa qofkii shaqaalaha ahaa ee miskiinka ahaa ee mushaharka ku qaadanayay maxay ahayd Somaliland shilin ku qaadanayay ayna lacagtiisa waxba u gooynaynin marka waxaan u baahannahay roolkii dawladnimo ee ahaa inay dawladdu markay lacag badan ururiso cashuurtii ururiso inay dadka ka kafayso waxyaalihii ahaan jiray ee ku soo korray caafimaadku inuu madax u ahaa wax maaragtay bilaasha in waxbarashadu ay ahayd wax bilaasha in biyuhu ahaa wax bilaasha waxyaalahaas marka qofkii miskiinka ah laga kabo inta kale noloshiisa uu dabari karayaa bay la tahay laakiin maanta haddii biyihii ay lacag noqdaan oo caafimaadkii lacag noqdo oo waxbarashadii lacag noqdo nabadgelyada aynu ku taamayno marka dambe laftirkeeda carqalad ayaa gelaysa marka dambena dalka crisis buu gelaya ictiraaf iyo waxaan aynu doonaynaana khalkhal ayuu gelaya marka waxaan leeyahay dhaqaaluhu waa injiinkii halkii ugu wanaysanayd waana halka ugu muhiimsan ee uu madaxweynuhu u baahan yahay inuu halkaa culayskaas wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad mahadsantahay Jamaal waxaynu habsanahay 15 daqiiqo xilligii aynu ku tala galnay balankeenu ahaa waxaynu haray qaybtan waxaan ku adkaysanayaa laba su'aalood oo kaliya in aynu siino dabadeedna aynu xudeedino duceeyo waan ku faraxsan inaad nala joogto dabadeedna aynu soo xidhano gacanta ugu horeysa yaasiin baa halka ka taagay iyo inanta halka sorry inaan ugu yaraan labada qaybood bidixda iyo midigta iyo inan idiin soo kala saara bahay si fiican uma arkayo kiyaalihi baa iga maqan adeero adiga su'aal toosa bismillahi raxmaani raxiim su-aasheedu waxay ku wajahantahay jamaal cali xuseen jamaal waxaa tiri central bank waa engine of economy howl badana way taallaa in bad baynu wada ognahay runtii boqolka cisho ugu horeeya maxaynu central bank ka qaban karnaa su-aasheedu taas asalaamu calaykum السلام عليكم waxaan weydiinayaa bankarka maadaama Soomaaliland 27 sano hadda jirto 27 sanana ay leedahay lacag ay iyadu gaar u leedahay anay jiraan baanan Soomaaliland leedahay waxa inta badan aan aragnaa oo la isticmaalaa waxa weeyaan baanan jira oo leeyihiin gurubyo ama shirkado baanankaasi waxay ka joojiyeen shaqadii dhammaan uu qaban lahaa banka Soomaaliland ama banka Soomaaliland mid kala timid oo waxa jira lacag la isticmaalo oo money transfer saadka lagu isticmaalo waa takaliye
sidaan anigu aaminsanahay iyo in badan oo ila mid yihiin waa ta kaliya ee sixir bararka ku keentay Somaliland baska markaad raacdid baa 25% u diraysaa oo ka dhiganta 2,000 oo Somaliland halka baskii aan ugu dirayna 25 senti oo dollarka Mareykanka ah adduunyada kale ee inaga sareysa ama ina la midkii waxay dollar isticmaalaan meel kasta oo shilin ku iibsanayso shilinka wadanka inaad bedesho exchange ku samaysaa waa must idina kaama iibinaysa dollar sidata maahe hadda Somaliland sidato inaga dukaankii iyo baskii wasaaradaha laftarkoodii ayaa isticmaala lacagtii dollarka sidee baan lacagteena ku horumarin karnaa sidee baan bankeena ku horumarin karnaa inagii baa isku joogsanaynaa inagii baa dhaqaalaheeni inuu kordho diidayna sidee baan lacagta dollarka u xakameyn karnaa oo lacagteena u horumarin karnaa aad iyo aad baa mahadsantihiin jawaabihi oo dhan Jamal Bey sugayaan please be short labadiinu bismillaahi raxmaani raxiim su-aasha hore ahayd central bank maxaa laga qaban karaa boqolka cishe ee madaxweynuhu uu qabto anigu waxaan u arkaa un central bank in dee sidaan dib habeyn laftirkiisa lagu sameeyo awoodihii uu lahaa la siiyo dadkii markaa central bank lagaga shaqaysiiyo oo uu noqdo central bank maxay ahaydey isagu sidii functionkii uu qaban jiray ama shaqadii caalamka uu ka qaban jiray central bank uu ka qabto sidii loo dhaqaajin lahaa un boqolka cisho ayaan odhan lahaa in loo samayn lahaa ta labaad ee su-aasha labaadna waxay ahayd un dollarized economy ayay nahay ama dhaqaalaha dal dhaqaalihiisu uu dollar ku base garaysay wax kale maaha sababtu dadkiiba waxay ka aamin baxeen Somaliland shilinkii haddii Somaliland shilinkii uu hoos u degayo oo aan central bank maamulaana aanu jirin dadkii way ka aamin baxayaan oo yaanu ku hooyan bay odhanayaan dadkii laakiin haddii maxay ahaydey saadka laftirkiisa qaybtan maxay ahaydey Somaliland shilinkii lagaga shaqaysiin lahaa in maartay anugu runtii ma rumaysni in waxa sicir bararkoo keenay dhan uu keenay inuu yahay saadka dadka qaar baa rumaysan inuu keligii yahay wax badan baa keenay sicir bararka waxyaalo badan ayaa keena oo taa aan ka hadlayay marka lacagta la soo daabacday oo kaleeto marka lacag soo daabacday 45 milyan oo dollar u dhiganta oo Somaliland aad suuq ku soo diisay ee dollarkii yaalay ka qaadid waxay dhulkii galaysaa la socota Somaliland shilling waxa weeye lacag fara badan oo money supply ama lacagtan de wareegta haday fara badan tahay waxa weeye central bank wuxuu sameyn jiray markuu kolba eegayo lacagna uu ku sii deyn jiray lacagna uu ka soo qaadi jiray marka wasaaradda maaliyadda iyo central bank waa laba isku xiran weeye aad u wada shaqeeya in xiriir gaar ah uu ka shaqeeyo wada shaqeeyana waa muhiim weeye oo kolba la ogaado canshuuraha laftirkooda hadday dawladda dollar ku urursanayso hadday Somaliland shilling ku urursanayso in policy laga yeesho gaar ah weeye laakiin shilinkeena inagu qiime inaynu qaali ka dhignana maaha inaynu maxay ahaydey aynu lowna ka dhigna maaha waa in level anagu aan doonayno oo dadku ay maartay mustarax ku yihiin loo sameeyo dhaqaalaha dalkana u noqonayo wax laakiin haddii maalin walba uu sii dego dadku ka aamin baxaya bariga hore stable buu ahaa central banki hore ee Somaliland ka shaqayn jiray waxaan garanayaa 1997 maraan Indonesia ka shaqaynayay oo halkan imid oo aan ka imid Asian crisis seminar baan u bixiyay central bank Somaliland barigaas madaxweyne Siraayo ayaa wasiirka maaliyadda igana codsaday inaan simbiraas iyo central bank oo aan ku tababaro xagga ilsiyada iyo kashka si uu soo ururinayaan waxyaalaha ay sameynayaan marka seminar 3 cisho ayaan sameeyay laakiin waxaan u baahanahay central bank inuu noo shaqeeyo oo noqdo mid injiinka ka shaqaysiin karayo oo policy la yeesho dawladuna maartay ay mar walba lacagta dollarka iyadoo haysato central bank uu yaalo oo central bank uu kolba dhaqaalaha kolba ku maamulo marna dollarka ku sii daayo marna Somaliland ku sii daayo wassalaamu calaykum waxaan ku dari lahaa Jamal waa runtii central bank uu ka soo shaqeeyay hawiye central bank iyo wasaaradda maaliyadda horta two different thing in la kala saaro maaliyaddu waxay tahay inay policy samayso central bankuna shaqadiisii currency-ga lacagayowga sidii loo ilaalinayay